Mansour Shams oo ka tirsanaa ciidanka badda Mareykanka ayaa bilaabay mashruuc ay qoysaska muslimiinta ah ay xilliga Afrika ku marti qaadayaan askar Mareykan ah. Mansour wuxuu hindisahan ugu talagalay in muslimiinta iyo dadka kale ay isku fahmaan. Naila Maxamed ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan Maxamed Sandere oo soo jeediya. So I told my wife, like, this guy is like a future Marine right here. Literally, that's how you do it. Mansour Shams waa hogaamiye dhinaca dhalinyarada oo degan magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka. Waxa uu ka tirsanaa ciidanka Marineska Mareykanka. 6 jir ayuu Mareykanka ku yimid waxaana uu garanayaa dhibta muslimiinta Mareykanka ku haysata. Isaga iyo saaxiibo kale ayaa la yimid mashruuc lagu magacaabo 29 for 29 oo dad lagu afurinayo. waa hindise 29 qoys ah oo muslim ahi ay ku afurinayaan 29 askari oo Marineska ka tirsanaan jiray kuwaas oo dalka oo dhan laga soo marti qaadayo hal habeenna guri qoys muslim ah ka afuraya. Mansour iyo qoyskiisa ayaa reerahaasi ka mid ah. Ninka martida u ahi waa Lieutenant Colonel Scott Cooper kaasi oo si buuxda qoyska Mansour ula soomaya. Mar la weydiiyay inuu sooman yahay ayuu yidhi haa laakiin aad ayaan u oomanahay. I am fasting today. I'm very thirsty. Cooper uma soomaya inuu taageero ciidanka Marineska waxa uu soomayaa inuu garab istaago bulshada muslimka ah. waan ka walwalaa sida muslimiinta looga arko Mareykanka. waa khalad inaad qof hoos u dhigtid. haddii aad baratid qof muslim ah waxaad arkaysaa inay yihiin dad diinta islaamka raacsan oo dariskeenna ah. dalkanina waa una deeqaa ilaaha doonta caabud iyada oo aan la eegaynin halka markii hore aad ka timid. si loo dareemo nolosha qofka muslimka ee bisha Ramadaan, Shams waxa uu Cooper keenay masjidka halkaas oo uu kula afurayo iyaga oo ku bilaabaya timir kadibna tukanaya. Do you like dates? I love dates. These are fantastic. dadkii Cooper soo dhaweeyay waxaa ka mid ah Imaam Cabdullaahi Diba kaasi oo aaminsan in arrintan oo kale soo dhaweynayso dadka kala duwan ee Mareykanka ku nool. Complete transformation from having no idea of what Islam is about. waa isbedel weyn adiga oo wax aragti ah aanan ka haysan islaamka ama in yar oo xun un ka maqlay in aad qoys muslim ah u tagtid oo noloshaada aad soo aragtid. waa isbedel weyn. Cooper hindisahan 29 for 29 waxa uu yahay daaqadu ka arko cabsida labada dhinacba ka jirta. warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baadhista Pew sanadkii 2017 ayaa waxa ay ku ogaatay in 62% dadka Mareykanku ayna muslimiinta u haysan in si buuxda ay Mareykanka uga mid yihiin, halka 50% ay u arkaan in muslimiintu ay ku adag tahay Mareykanka gudihiisa. There's a large amount of Americans that have not met a Muslim. On top of it, waxaa jira dad badan oo Mareykanka ah oo qof muslim ah aanan la kulmin. intaas waxaa dheer dambiyada naceebka ku salaysan waa ay sii kordheen. waa sida FBI-du ay sheegtay. marka waxaan istusnay inaan baxno oo dadka kale ee naga duwan aan xiriir la samaysano. Mansour ayaa rajaynaya in hindisahan 29 for 29 uu yahay bilow wanaagsan kaasoo noqon kara buundada isfahamka dadka Mareykanka iyo dadka diimaha kala haysta gaar ahaan muslimiinta. isla wararka muslimiinta Mareykanka la xiriira ayaan ku guda jirnay nin Mareykana oo dhawaan qaatay diinta islaamka in yar uun ka hor intii aanay isguursan haweeney ka soo jeeda bariga Afrika ayaa waxa uu ka hadlay bisha Ramadaan oo markii ugu horeysay uu soomay. bisha Ramadaan ayaa ninkan iyo xaaskiisa waxay ugu dhalatay iyagoo markaas uun ka soo noqday 7 baxoodii. Betty Ayub ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya. qoyskani waxa uu ku nool yahay duleedka magaalada Washington DC iyagoo isku cusub ayaa bisha Ramadaan ay soo gashay. waa Ramadaantii ugu horeysay ee Jeremy uu soomo maadaama uu dhawaan diinta soo galay. waxa uu ka hadlayaa xilligii uu islaamka qaatay. waxaan diinta islaamka qaatay 3 bilood ka hor. waddo dheer ayaanu soo maray. waxaan ku dhashay oo ku barbaaray diinta Masiixiga waxaanay noqotay inaan islaamka barto. hase yeeshee macallinkayga ugu wanaagsani waxa uu ahaa xaaskayga iyo qoyskeeda ayuu yidhi. Aryaam Maxamed waa xaaska Jeremy. waxaan soomi jiray ilaa iyo markii aan yaraa. markaa qofka hadda uun soo galay aad ayaan u bogaadinayaa. wax sahlan ma ahan. Jeremy ayaa ka hadlaya waxyaabihii ugu adkaa ee uu la kulmay. wixii igu adkaa waxa uu ahaa bedelashada diinta ilaa aan soo gaadho heer kalsooni buuxda aan ku qaado xidhiidhkeenna. markaas kadibna aan reerkayga u sheegay. si wanaagsan bay iga oggolaadeen maxaa yeelay Aryaam ayay jeclaadeen ayuu yidhi. Jeremy waxa uu diinta islaamka soo galay bishii March 17keedii waxaana shahaadada loogu qabtay xarunta bulshada muslimiinta ee gobolka Maryland.
warbixin ay samaysay xarunta cilmi baadhista Pew ayaa waxaa lagu ogaaday in 9% dadka Maraykanka ay diinta Islaamka u qaataan marka ay qof muslina guursadaan. Aryaam Maxamed ayaa ka hadlaysa sidii ay Jeremy diinta ugu soo bandhigtay. in aad qof ku tiraahdo diin kala qaado wax weyn bay igu tahay aniga. markii arrintu ay reerkiisa gaartay mid cabsi weyn leh bay ahayd, laakiinse sida isaguba uu u sheegay way ina taageereen, waxayna arkeen in uu gacmo aamin ah ku jiro. Jeremy Xasor ayaa ka dhimatay markii uu cudurka kansarku ku dhacay. waxay isu dhaleen wiil yar oo lagu magacaabo Jeremiah oo hadda aabihii la socda. labadayada baan ahayn markii aan Aryaam la kulmayna waan gartay inay qof gaara tahay, weli qof iyada la mida ma arag ayuu yidhi. in bil buuxda la soomayo ma ahayn waxuu Jeremy hore uga sii fikray, hase yeeshee haddoo ay bishii gebageba tahay soonku qoyskan wuu u fududaaday. Aryaam Maxamed ayaa sheegtay in iyada soonku una dhibaynin. wax sidaas u sii dhib badan ma ahan oo la yidhaahdo ciiddii ayaa soo dhow, imise cishaa ka hartay kalandarka maalmihii la soo dhaafay kama tirtiro. Jeremy ayaase sheegay in isagu uu kalandarka isha ku hayo, hase yeeshee Jeremiah wiilkiisa yar ee 10 jirka ahi ma sooman yahay. maya, anigu ramadaanta kama qayb qaadanaya ayuu yidhi. Aryaam Maxamed ayaa ka hadashay mustaqbalka wiilka yar. waxay sheegteen in kastoo Jeremiah uu hadda guri muslina ku korayo iyadana hooyo ugu yeera ilaa wixii guurka ka dambeeyey, haddana waxay iyadii ninkeedaba isku raaceen in Jeremiah loo daayo inuu doorto diinta uu isagu doono, oo markaa haddii uu doonayo uu soomo amaba uuna soomin.